الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى waxaan noogu soo dambaysay reer madiine oo si ba-an u soo dhoweeyey rasuulka hadaladoodiina ka mid ahaa طalaca albadaru calayna min haniyaati alwadaac wajaba ashukru calayna ma dacaa lilahi daac ayuha almabcuuثu fiina ji'ta biاlamri اlmutaaci saasay markaa ku soo dhoweeyeen wakaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii allana sala allahu calayhi wasalam laa yamuru midaan la soo marin buu ahaa bidaarin daar oo min duuri alansaari reer ansaar daaraheeda ka mid ah ilaa akhaduu waxay qabanayeen bikhitaami naaqatihi hashiisa hoggaankeeda ayay markaa qabanayeen ama daar iyo guri oo guryaha ansaar ka mid ah waxa ay ku xiran tahay hoggaanka ah ay markaa qabanayeen yaquuluuna ayagoo odhanaya halumma ilaya kaalay xaggeena alcadadi tiro waalcudati diyaargarow iyo waasilaaxi hub iyo waalmanacati difaac intaasba waa kuu haynaaye noo imow rasuulkii ilaahayow kaalay xaggeenna imow anaga nala joog waayo waxaan haynaa tiro ciidan ah waxaan haynaa diyaargarow aan ku diyaargarownay difaacaaga waxaan haynaa cuddo iyo hub iyo macnaha silaax iyo manaca waa difaaci fakaana wuxuu ahaa rasuulkuna yaquulu lahum mid u dhahaa khalluu u baneeya war u daaya sabiilahaa jidkeeda u dhaafa ayuu markaa rasuulku dhahayay fa innahaa ayadu hashuu ula jeedaa ma'muuratun way amran tahaye xagga rabbi ayaa laga soo amraye hashaan dhaafa oo sii daaya falammaa goortii wasalat ay soo gaartay annaaqatu hashii ilaa mowdici almasjidi annabawiy meesha hadda masaajidka nebiga uu ku yaalo mowdaca iyo booskaa mar allaala markii ay soo gaartayna barakad way jilba jabsatay way fadhiisatay oo meesha ayay markaa fadhiisatay kuna jilba jabsatay hashii fa barakad dheh way fadhiisatay falam yanzil ma uusan ka degin rasuulkana canhaa xashii markay fadhiisatay kama degin nebiga xataa nahadad ilaa haddana ay hinqatay booday way istaagtay haddana oo way hinqatay wasaarad way socotay qaliilan in yar humma iltafatat way milmileecsatay reedaha iyo dhinacyaalkay saa u fiirfiirisay hashii wa rajacat fabarakat waxay haddana ku jilba jabsatay ku fadhiisatay fii mowdiciha alwali boos ayay haddana fadhiisatay fanasala waa uu ka degay rasuulkana canhaa xagay markii mar labaad ay fadhiisatay fajacala annaasu dadkiina waxay guda galeen yukallimuunahu inay kala hadlaan rasuulka fi nusuuli soo degitaan calayhim korkooda inuu ku soo dego guri walba reer walba xaafad walba kaaba qabiil walba wuxuu ku dadaalayay inuu nebigu ku soo dego dadku way kala caqli badan yihiin intay dadku nebigu la hadhadlaayeen annaga nagu soo deg ay u lahaayeen wabaadara abuu ayuub alansaari abi ayuubkii reer ansaari ahaa asaga wuxuu u degdegay radia allaahu canhu wuu u degdegay waa degdegay oo fa adkhala wuxuu geliyey raxlahu nebiga alaabtiisii fii beytihi gurigiisa ila soo deg iyo gorgortan mabuusan gelinba suu u socday shandadii rasuulku watay iyo alaabtiisii buu soo dafay markaasuu gurigiisii la galay fajacala rasuulullaahi rasuulkii allana wuxuu guda galay yaquulu inuu odhanayo almar'u maca raxlihi qofku alaabtiisuu micigiisa noqonaya meeshii boorsadayda iyo cafashkaygii la geliyey
ayaan degayaa. waa xaqiiqo in hadda laga soo bixiyo gurigiisoo meel kale la geeyo ma aha. qofka boorsadiisa meesha ay taallou degayaa iyo raxladiisa. wa akhada wuxuu qaaday ascad ibnu zuraara wuxuu qabtay asagana bizimaami raaxilatihi, gaadiidkii nebiga raaxiladiisii hoggaankeeda. anigana midaan baan qaadanayaa buu yidhi. fa kaanat cindahu agtiisay ahaatay nebiga degitaanka gurigiisii ascad ibnu zuraara uu degi lahaa hadduu ku guul daraystay, abuu ayuubna uu ku guulaystay. waxii gacantiisa qabanaya waa hashii rasuulkee, tii asagana la tagu qabsaday. tii buu yidhi tanaa agtayda ahaanaysa gurigiisa, ayuuna markaa la aaday. wasaabaqa way tartameen saraa'atu lansaari, ansaar kuwoodii ashraafta ahaa, saraaradii reer ansaareed waxay u tartameen fi istidaafati rasuulillaahi, rasuulka istidaafadiisa, macnaha rasuulka ee martiqaadkiisa ama soo dhoweyntiisii yay ku tartameen. fa kaanad waxay ahayd aljifaanu xeerooyinkii ta'tiihi kuwa uga timaada minhum ashraafta baabkiisa waxaa laga helaya oo yiilay athalaathu aw ilarbac oo minha, 3 ama 4 xeerooyinka ka mid ah. 4 ama 3 xeerooyinka ka mid ah ayaa markaa laga helayay guriga albaabka rasuulka. hijratu cali hijrooshihiisii iyo wa luxuuquhu soo ka daba tegitaankiisii uu ka daba tegey ama uu soo haleelay birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. cali baa haddana soo hijroonaya. cali waan soo sheegnay markuu rasuulku soo baxayey waata firaashkiisa lagu soo dhaafay, waa meeshii nebiga dilka lagu samayn lahaa ninkii seexday ayuu markaa ahaa. idan cali waa soo baxaya, wuxuuna soo haleelayaa inuu nebigu ka daba yimaado sala allahu calayhi wasalam. wamakata wuu ku nagaaday cali bni abi aalib radia allahu canhu bimakkata, maka ayuu ku nagaaday bacda annabiy, nebiga ka gadaal sala allahu calayh wasalam 3 maalmood. 3 maalmood ayuu ku nagaa. wa addaa wuxuu ka soo gudayin rasuulka agtiisa tiilay oo nebigu bacdamay aad u taageeri jireen oo ay aaminsanaayeen. xataa amaanaadka rasuulkay u dhiiban jireen sala allahu calayh wasalam. hadda hadduu rasuulku ka soo baxay, calina uu iska soo baxo, hadhow dacayd bay suuqa gelinayaanoo nin fiican inuu yahay buu sheeganayaa, nebi buu sheeganayaa, shilimaadkii dadkuu la baxsaday, dacayd noocaasay suuqa gelinayaan. saysan u dhicin xikmadda cali loo reebay waxaa ka mid ahaa amaanaadka nebiga uu haayey inuu ka soo bixiyo kana soo gudo. wamakata wuu nagaaday cali bni abi aalibin bimakkata bacda annabiy, nebiga ka gadaal sala allahu calayhi wasalam 3 wa addaa wuu ka soo guday 3daas maaluu gudahayay wadaa'ica ammaanooyinkii cinda rasuulillaahi, rasuulka agtiisa ahaa liahli maka uu u haayey. markuu ka soo faraxashay qof walba ammaanadii nebiga uu u haayey uu ku soo wareejiyey. uma kadib kharaja wuu soo baxay cali maashiyan asagoo lugaynaya calaa qadamayhi gomdihiisa, lugihiisuu ku socdaa, dameer ma saarna, faras ma saarna, asagoo ku lugaynaya min makka ilaa madiina ayuu lugihiisa ku soo socday. xataa laxiqa ilaa uu uga daba yimid uu ku haleelay rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam biqubaa'i, quba meesha lagu magacaabo ayuu nebigu ku haleelay uu markaa uga daba yimid. wanasala cali wuxuu ku degay calaa kultuum bilhadmi dushiisa. hijratu ahli lbeyt, ahlu beytkii haddana soo hijroonaya. ilaa nebiga wuu ka soo tegay dadkiisii, gabdhihiisii, caruurtiisii, ehelkiisii, xasiskiisii wuu soo dhaafay. keligiisuu la soo baxsaday asagii abuubakar. walama istaqara markuu ku sugnaaday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati, magaalada madiina, arsala wuxuu adeeg u soo diray zayd ibnu xaarisa ninka la yidhaahdo ayuu soo diray, iyo wa abaa raaficin ilaa makka
makuu u soo diray rasuulku mar allaala markuu madiina ku sugnaaday wuxuu soo diray zayd ibnu xaarisa iyo abaa raafic maka kulaabtoo bax maka aada buu yidhi faqadimaa way la soo galeen bifaadimata faadimo wa ummi kulhuum oo bintay nebiga gabdhihiisa ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam caruurta nebiga iyo wuxuu u diray gabdhihiisa inay soo kaxeeyaan waxay kaloo soo wadeen wa biummi almu'miniin mu'miniinta hooyadood waa sawda wa ummu ayman oo nebiga soo korisay wa usaamat ibnu zayd oo xibbigii nebiga ahaa wa kharaja macahum waxaa la soo baxay dadka nebiga ehelkiisa micigooda cabdullaahi ibni abi bakarin wa abuubakar canugiisa cabdullaahi ibni abi bakarna wuu soo kaxeeyey biciyaali abibakarin abibakar ciyaalkiisa oo min rumaan buu soo kaxeeyey caaisha hooyadeed ahayd wa asmaa binti abi bakar wa caaisha radia allaahu canhum wa canhunna ajmaciin saxaabada iyo dumarkaa saxaabiyaadka ah ilaahay naxariistiisa iyo raadi ahaashadiisa korkooda ha ahaatee intaasna waa laga daba keenay wadaalika arrintaa waxay ahayd oo ahlu beytka nebiga la soo kaxeeyey bacda 6 ashhurin 6 bilood kadib min hijrati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam hijradii nebiga 6 bilood kadib ayay markaa ahayd hijratu suhayb baa haddana soo hijroonaya suhayb ayaa haddana soo hijroonayoo soo baxaya wahaajara waxaa soo hijrooday oo kale suhayb bacda rasuulillaahi rasuulkii alla kadib sala allahu calayhi wasalam walamaa goortii araada uu doonay waa suhaybe alhijrata hijrada xajazahu waxaa hor istaagay almushrikuuna mushrikiintii ayaa xajistay nebigoo way hor istaageen fatakhalla can amwaalihi wuxuu u baneeyey ee uu siiyey can amwaalihi maalkiisa xaggii lahum ayaga oo macnaha mar allaala markay hor istaageen ayay dhaheen bixi maysid wallaahi buu yidhi nin raam ahoo shiishka ku dheeraan ahay intaa leeb ama fallaar ee aan haystaad u jeedaan ilaa midba mid aan idinkaga dilo gacan ugu dhigi maysaan waayo rajul raami baan ahay aad shishmada ugu dheereeya markay arkeen ninkan dhibkiisa iyo inay waxba ka qaadi karin yay dheen sucluug adoo ah oon maal wadanin aad noo timid markaad xoolaha ku yeelatay naftaada iyo xoolaha maba isla bixaysidba ka warrama buu yidhi haddaan dhammaan idin siiyo maalkayga kulli haddaan idinku wareejiyo waayahay bay dhaheen saabuu tilmaamayaa fatakhalla waa u baneeyey can amwaalihi maalkiisa lahum ayaga waa u kala dhex baxay macnaha qaata buu yidhi wa kaanad waxay ahayd xoolihiisa kahiira kuwa aad u fara badan fakhallow sabiilahu jidkiisay u sii daayeen markay hantidii la wareegeen ma hanti buu rabaa nebi moxamed inuu u taguu rabaa sala allahu calayh wasalam wuxuu rabaa rasuulku meeshuu ku nool yahay inuu ku noolaado wuxuu rabaa nebi moxamed inuu ku indho dogsado sidaa darteed ayay xoolihiisu fara badnaayeen fakhallow way u banneeyeen ayagana sabiilahu jidkiisa falamaa goortii wasala uu gaaray waa suhaybe almadiinata madiino waqasa uu uga sheekeeyey cala alnabiyi sala allahu calayhi wasalam qisatahu qisadiisii dhacdadiisa qaala rasuulku wuxuu yidhi rabixa albaycu abaa yaxyaa baacii wuu faa'iiday abaa yaxyow lagu kunyeyn jiroo la dhihi jiray abuu yaxya almustadcafuuna dadkii la taag daraystay haddana mustadcafiin waa kari waayey inay maka ka soo baxaan waxabasa almushrikuuna mushrikiintii way xabiseen bacda almuslimiina muslimiinta qayb ka mid ah can ilhijrati hijradii xaggeeday ka xabiseen wacadabuuhum way cadaabeen wafatanuuhum way fidneeyeen can diinihim diinkoodii bay ka fidneeyeen minhum mustadcafiinta waxaa ka mid ahaa alwaliid ibn اlwaliid wacayaash ibni abi rabiica wahishaam bin alcaas raggaasaa ka mid ahaa mustadcafiin bay ahaayeen gacantaa lagu dhigay meelay ka soo baxsadaan ama ay ka soo baxaan bay waayeen
mustadcafiinta la tabardaraystay oo la daciifsaday. waxabasa almushrikuuna mushrikiintii waxay xabiseen bacda almuslimiin muslimiinta gobol ka mid ah waxay ka xabiseen ay ka hor istaageen can ilhijrati hijradii xaggeed. wacadabuuhum way cadaabeen, wafatanuuhum way fidneeyeenoo waxay ka imtixaameen can diinihim diinkooda. minhum waxaa ka mid ahaa alwaliid ibnu اlwaliid wacayaash bin abi rabiica wahishaam bin اlcaas. fakaana rasuulu اllahi rasuulkii allana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadacuu mid u duceeya lahum ayaga ragga mustadcafiinta wuxuu ugu ducayn jiray fi salawaati salaadaha. wayadacuu wuu habaarayay rasuulka calaa man xabasahum dadkii xabisay oo min kufaari quraysh gaaladooda ka mid ahna salaaduu ku habaarayay rasuulka. wahaada aslu lqunuud waa qunuudka asalkiisa. asalka qunuudku saasuu markaa ahaa. wa bacda xiin waqti kadib qaama waxaa istaagay bacdu almuslimiin muslimiinta qayb ka mid ah bicamalin shaqo bay u istaageen. camal butuuliyin geesinimo ah, jariyin dhiiranaasho ah. muslimiintii qayb ka mida markay cadaadiskii u adkaysan waayeen camal bay u istaageen iyo howlgal geesinimo ahoo dhiiranaasho ah. akhrajahum uu uga saaray ilaahay bidaalika arrintaa waa camalka geesinimada inta qaydkoodii xarigooda. fahaajaruu markaasay u soo hijroodeen ila almadiinati madiina xaggeeda. madiina xaggeeday markaa soo aadeen. munaakhu lmadiinati deegaankii madiina. madiina habkii loo degay iyo deegaankii waaye. walamaa goortii nasala almuhaajiruuna muhaajiriintu ay soo degeen bilmadiinati magaaladii madiina asaabahum waxaa asiibay hammun murug wa xusnun iyo tiiraayo. murug iyo tiiraaya markaa asiibtay lifiraaqihim faaruqitaankii ka tegitaankoodii ardahum dhulkoodii ay ka tageen iyo wa diyaarahum guryahoodii allatii taasoo nashacuu biha ku koreen oo wataracracuu fiihaa oo ay barbaareen. dhulkii iyo aradii ay dheleen ku barbaareen markay ka tageen murug baa asiibtay. markaad safar gasho meel kugu cusub aad tagto wax badan baad indho taagtaagaysaa. wax badan baa lababiyood ku qabanaya. wax badan baadan la qabsan karin ilaa meel kastoo lagu geeyo si kasta ha u fiicnaatee maalmaha ugu horaysaa waxay kaa gaaraysaa maxaa ku keenay maryaa ku celiye iyo wixii markaa la mid ah ilaa qofkuu kala qabsado. idan dhulkii ay ku koreen oo ay ku barbaareen kaasay markaa u hiloobeen. walamaa nasala markay soo degeen almuhaajiruuna muhaajiriintii bilmadiinati madiino asaabahum waxaa asiibay hammun murug wa xusnun iyo tiiraayo lifiraaqihim faaruqitaankooda sababtiisii buu ku asiibay ardahum dhulkoodii wa diyaarahum diyaartoodii ay markaa soo faaruqeen. allatii dhulka iyo diyaartaasoo nasha-uu biha ay ku koreen wataracracuu fiiha ayna ku barbaareen. faakhaduu waxay guda galeen yadkuruuna inay xusuusanayaan tilka alarda dhulkaa asaga ah dhulkii maka ahaa oo ay ka soo tageen inay xusuusanayaan oo wayaxinuuna ilayha ay u hiloobayaan inay xaniin iyo hilow uu u qabanayo. wazaada waxa u kordhiyey daalika arintaa wazaada daalika arintaa shiddatan si xoog badan macnaa in hilow iyo dhulkii ay u xiisaan waxaa ku siyaadiyey ana almadiinata madiino kaanad waxay ahayd min awba'i ardi illaahi dhulka ilaahay meesha ugu cudurka badan bay ahaan jirtay. meesha ugu duumada iyo kaneecada iyo qaniinka badan ayay markaa ahayd. macnaha waa arada ilaahay meesha ugu cudur badan bay markaa ahayd. taana hilowgii markay u siyaadisay. ana almadiinata madiino kaanad waxay ahayd min awba'i ardi illaahi ilaahay dhulkiisa meesha ugu cudurka badan. falamaa markii nasaluu ay degeen bihaa madiina asaabathum waxaa asiibtay saxaabadii qayb ka mida xumad qandhaa asiibtay iyo wa anwaacu nuucyo oo min almaradi
xanuunka markaa ka mid ah nooc xanuunka ka mid ahna markaa wuu asiibay fadaca nabiy nebiga u baryey rabbahu rabbigii caza wajal intaa kadib nebiga alla tuugay wa qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow xabib najaanu qabna oo kale ka xubbina jacaylkeena aan jecelnahay maka oo kale aw ashadda ama mid ka daran wasaxixaa ilaahu noo caafimaad yeel xanuunyada iyo waxyaabaha meesha yijaala caafimaad noogu bedel wabaarik allow barakay fii saacihaa suuskeeda wa muddihaa iyo madaalkeedaba ilaahu noo barakay koombada madiina iyo suuska madiina allow noo barakay barakada amase barakada maka mid ka daran oo kale wanqul ilaahayow rar oo waxaad nooga rartaa xumaahaa qaniinkeeda qandhadeedii cudurkeeda allow naga rar fajacalhaa allow yeel juxfa meesha lagu magacaabo juxfa meel la yidhaahdaa jirtee meesha naga geey weliba rasuulku waa tuil waxaan ku riyooday islaan qaab daran oo si hanaan fiican aan lahayn timaheeda ay ashcad iyo basaasan ayadoo dhan la dayi karin oo intay madiina ka baxday juxfo tagtay maxaad ku fasirtay cudurkii oo ka baxay madiina meeshaana tegey madiinaa iftiintay madiinaa sharaf yeelatay madiina magaalo noqotay juxfana baaba bay noqotay saa darteed ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow guuri wanqul ilaahow rar xumaahaa qandhadeeda iyo xanuunkeedana allow naga guuri fajacalhaa ilaahayow yeel biljuxfa juxfa naga gee waajaaba allaahu ilaahay baa ka ajiibay nebiga ducaa'ahu baryihiisa sala allahu calayh wasalam waajaaba allahu ilaahay waa ajiibay ducaa'ahu baryihiisa rasuulka sala allahu calayh wasalam faistaraaxa way raaxaysteen almuslimuuna muslimiintiina min amraadi xanuunyihii bay ka raaxaysteen wa axabuu waxay jeclaadeen almadiinata madiinay jeclaadeen madiine ayay jacayl u qabeen in laga fujiyo yaba la awoodi waaya markii dambaba meel qiimo badan oo sharaf badan bay markaa noqotay acmaalu rasuulillaahi baanu gelaynaa fi lmadiinati almunawara howlihii nebiga uu qabtay sala allahu calayhi wasalam markii uu tegay magaalada madiina wabillaahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam